Cawaale maanta oo ay 14 bisha tahay waxa aan ka noqonnay ururkii Jabhadda Cawaale ee aan ku dhawaaqnay sabab awgood iyada oo nin tolla aan dhaari u bixin waxa aqoonyahan iyo saraakiil iyo madax ay tolkaya ahaa ay nagana qabsadeen taladaasi waxaan yeeli lahayn iyo waxaan qabsan lahayn annagoo ugu tala galay dhimasho haddana waxa weyn nin tolla dhaari uma baxdo waxaan ka udur daaranaa Cawaale waxa weyn nin tol lihi guul ma gaaro waa laga qabsan karaa mana dhaaran karo aan noqonaysaa inaan Cawaale ka noqonay maanta oo bishu tahay 14 jabhadda naga aqbashay iyagu oo in ka badan 3 bilood buuraha ku jiray in si dhib yar ay habeenka ka guuraan saldhigyadoodii naga aqbashay iyagana mahad baanu naqaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa General Cabdirasaaq Saciid Bulaale oo ah janankii u xilsaaraa inuu tallaabo ka qaado ciidamada ka samaysmay buuraha oo waxa weeyaan noo dulqaatay isaga iyo madaxweynuhuba intii aan hawsha dhameeynay mar walba waxa weeyaan si joogto ah wixii aanu la tagno codsiya warbal dib noogu dhiga yaani rasaasi dhicin yaan ciidamadu isku dhicin waxa weeyaan dulqaadka iyo raganimada uu sameeyay aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirkeena wasiir Saacin Professor Salebaan Axmed Guuleed Suldaan Salebaan oo jabhaddu ay shalay naga codsadeen annagu horta bariyahanba waxaanu ahayn rag waaweyn oo Xasan Xuseen Professor Qaasim dhalinyarada kale ee waxa weeyaan xildhibaanadii ciidamada jabhadda magaca Cawaale la baxday ee naga aqbashay ergadii odayaasha ergadii jananimo ergadii wasiirka ergadayadii isku duubnayd Professor Salebaan naga aqbashay suldaankaba aad baan ugu mahadnaqayaa mahadnaqa kadib waxaan u sheegayaa anigana waxaan runtii maanta aad ugu faraxsanahay anigoo waajibkaygu ahaa colaad iyo nabad inaan mid ku soo afjarno arrintaa waliba colaad inaan ku soo afjarno oo ahayd aan uga jeedo jamhad meel ku ururtay dawladnimo eegato anigoo abaanduliga guud ciidamada qaranka inaan arrintaas soo afjaro soona tirtiro guul wadareedeen u wada joogno arrinna way dhacdaa khalad u dhacaa laakiin tabcan ilbaxnimada waa in la saxaa waana ku saxantay halkan maanta waa u ducaynaynaa intii nimankii jabhadda isabaabulay markii aynu soo hor fadhiisanayna wixii gareenu la tagnay ergadina naga aqbalay inay shuruucda dalkana ku dhaqmaana ku ballan qaaday annagu aanu una joognay guuritaankoogii wixii tabasho ah oo runtii in badan macquul ahayd oo waxyaabo dee Soomaaliland kulli inaga dhiman oo meel walba tabasho way jirtaa laakiin si gaar ah qoladan ee halkan ay ahayd deegaankani waxa tiina waan ka qoray arrin intii muddadii dhaweydba culays lagu ahaa gobolkana ku ahayd reer ahaan inagu ahayd oo walwal badan ka qabnay waxa weeyaan maanta alxamdulillah inay soo xidhantay ay jabhaddii naga aqbashay ay ballan ay ku qaadeen inay guurayaan iminka aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin waxaanan moogtahay halkan ka sheegayaa in maadaama aanu nahay madaxdii meesha hawsha gashay wixii tabasho ah annaga guudka saarannay umuuraha Allah inoo sahlo abshir sanahayna waafaji anu xagga mahadnaqaya aad uma badiyo waa laygu yaqaan wixii aan u jeedo baan ka hadlaa waxaan dawladda waan u mahadnaqayaayo jabhadda way u dulqaadatay in badan dawladda taasaan ugu mahadnaqaya inamada jabhaddana waan u mahadnaqayaayo inta ay meesha fadhiyeen ficilkii jabhadi lahaan jirtay lama ay iman wadama ay joogsan ruux dumar ma ay hatidin wax kale iska daayo inamadana taasaan horta ugu mahadnaqaya adeerayaal waxaan leeyahay anigu inta iyo ducaan idinkaga tagayaa arrinkiina waa sidaa uu dhamaaday si fiican u fuliya meesha dawladda soo maraysa bari iyo wixii lamida waa la soo marayaa waajib